waxaa natiijo la'aan ku soo dhamaaday shirkii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada uga soconayay maalmahan magaalada caasimadda u ah Galmudug ee Dhuusamareeb kadib markii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada qaarkood ay isku fahmi waayeen qodobada aasaasiga u ah khilaafka dhanka doorashooyinka ka taagnaa in muddo ahba. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay in la soo gabagabeeyay wareegga afraad ee wadahadaladii hoggaanka Soomaalida uga soconayay Dhuusamareeb iyadoo oo aanan wax heshiis ah laga gaarin sida uu hoosta ka xariiqay wasiirka warfaafinta federaalka Cismaan Abuukar Dube. waxa uu wasiirku xaqiijiyay in kaliya isfaham laga gaaray qodobka gudiyada lagu muransan yahay balse aan wax horumar ah laga sameeynin labada qodob ee kale. xukuumadda muddaxileedkeeda dastuuriga ahi uu sii dhamaanayo ayuu xusay inay ka saarayso gudiyada lagu muransan yahay qof kasta oo dhexdhexaadnimadiisa su'aal la geliyay. Master Dube ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in heshiiskii 17 Sebtembar uusan diidayn in gudiyada ay ka mid noqdaan shaqaale rayd ah. waxa uu satibaaxay in xafiiska ra'iisul wasaaraha uu diyaar u yahay in uu gudiyada xubnaha la duray uu ka bedelo. hoggaanka maamul goboleedka Jubbaland ayuu ku eedeeyay inay diideen 3 qodob oo madaxda shirka ka qayb gashay ay soo jeediyeen si xal loogu helo arinta gobolka Gedo oo madaxdu ay ku kala tagtay in shirka uu fashilmana qayb ka ah. qodobada la soo jeediyay ayaa kala ah in ciidamo boolis amisom ah la geeyo gobolka Gedo, in guddi dowlad goboleedyada ka socda oo wasiirada arrimaha gudaha ah loo diro gobolkaasi, iyo in Jubbaland iyo doorashada ay ku qabato magaalada Garbaharey. madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu wasiir Dube tilmaamay inay tuhunsan tahay in didmada hoggaanka Jubbaland ee soo jeedinta qodobadii lagu xalin lahaa qadiyada gobolka ay gadaal ka riixayaan awoodo shisheeye. dhanka kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo isna ka hadlay shirkii fashilka ku soo dhamaaday ee Dhuusamareeb ayaa eedeymo culus u soo jeediyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo aan ku hadlin cod madaxweynenimo ayuu ku eedeeyay xaalad abuur, kala qaybinta bulshooyinka wadadega gobolka Gedo iyo u ololeynta beel iyo jufo gaar ah sida Axmed Madoobe uu hadalka u dhigay. mar walba madaxweynaha wuxuu ku celcelinayay arinta gobolka Gedo doorka ay Jubbaland ku yeelan karto waxay noqon kartaa in ay isdirto guddiga doorashooyinka. Axmed Madoobe ayaa intaas ku daray in dowladda Farmaajo ay ku fashilantay in ay fuliso talo soo jeedinta guddigii arinta gobolka Gedo loo saaray kadib heshiiskii 17 Sebtembar. shirkii ugu horeeyay ee aan galnay madaxweynaha wuxuu yiri Jubbaland iyo Puntland baa tabashada qabay, ha sheegeen maba ahayn nin ay wax ka maqan yihiin oo aan garanayn meesha ay wax marayaan. xilli uu ka digay qalalaasa siyaasadeed iyo dagaal sokeeye uguna baaqay Soomaalida iyo beesha caalamka si ay si dhow ula socdaan xaaladda taagan ka Jubbaland ahaan ayuu hoosta ka xariiqay Axmed in uu diyaar u yahay wax kasta oo heshiis lagu heli karo. dhammaan hadaladii ka soo yeeray wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ka hadlay Dhuusamareeb ayuu ka dhawaajiyay in ay ka fog yihiin xaqiiqda. waxaase madaxweynaha Jubbaland dhinaca kale uu su'aal geliyay 4 sano ee madaxweyne Farmaajo uu muddaxileedka soo hayay. Farmaajo 4 sano wadankan aan arkay isagu ma maamulayn ee yaa maamulayay. waxaan diyaar u ahay wax kasta oo xal lagu heli karo. waxaan ka xumahay dagaalka ka socda gobolka Gedo ayuu hadalkiisa intaas ku sii daray. dhinaca kalena madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhamaadka yahay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sabtida maanta hortagay mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka waqtigiisu uu dhamaaday. gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa fadhiga golaha shacabka ka saaray senataradii taageersanaa filla Soomaaliya ee ka hor yimid go'aankii afhayeenka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Mursal oo ka hadlay fadhigaasi saxaafadda iyadoo dibad joog ay ka ahayd waxa uu ogeysiiyay xildhibaanada in isu imaatinkooda uu daaran yahay dhageysiga hadal jeedinta Farmaajo balse aanu jirin muddo kororsi.
afhayeenka aqalka hoose Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka furay waxa uu sidoo kale sheegay in ajandaha kulanka uu yahay xaaladda guud ee waddanka iyo doorashooyinka 2021 ee isfaham waaga xoogan uu ka taagan yahay tan iyo bishii hore. bilowga hadal jeedintiisa kadib mahadcelinta madaxweyne Farmaajo oo xubnaha taageersan ay fadhiga buux dhaafiyeen ayaa carabka ku dhuftay in Soomaalida ay yihiin dad buuxa lana dhageysan waxa ay sheegayaan shisheeyaha. xaaladda aan ku jirno iyo warbixinta aan idin siinayo ma ahan xaalad u taala muxaafid iyo mucaarad, waa wax naga wada dhaxeeya oo masiiri ah. sacab iyo qaylo sax ma ahan, go'aan baa noo wada yaala, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo kadib qaar ka mid ah xildhibaanada xaadiray fadhigan aan caadiga ahayn ayaa bilaabay inay ku oriyaan ama ku buuqaan madaxweynaha. dowladdiisa ayuu ka dhawaajiyay inay diyaar u tahay dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii la soo dhaafay Muqdisho ay ku wada gaareen isaga iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, isaga oo baarlamaanka weydiistay inay ku soo biiraan dadaalada xalka lagu raadinayo isfaham waaga jira. intii uu hadal jeedinta ku guda jiray madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer waxa uu ku celceliyay in dowladdiisa ay tanaasul badan ka sameysay arrimaha doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ka dhacay Muqdisho. madaxda dowladaha Puntland iyo Jubbaland ayuu ku eedeeyay in ay xudun u yihiin khilaafka taagan, hase yeeshee waxaa jira rajo aan xal ku gaari karayno haddii aan mar kale isku soo laabanno, ayuu hadalkiisa raacshay madaxweyne Farmaajo. guud ahaan xaaladda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka xaqiiqatan waxaa ku guda jirta faragelin shisheeye. aniga ma oranayo gobol hebel ayay ku badan tahay faragelinta, laakiin xaqiiqatan faragelintaas ayay wax noogu hagaagi la'yihiin, ayuu madaxweyne Farmaajo hadalkiisa ku daray intaasi. ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in uusan jiri doonin firaaq dastuuri ah, balse ma sharaxin qaabka ay ku dhici doonto maadaama xilhayntiisa dastuuriga ahi ay ku eg tahay 8 bisha February oo Isniinta soo socota ah.